cabdi aadan ibraahim waxa uu muddo ka badan 20 sano uu ka shaqeynayay bariiska loo yaqaan baarowga waxa uu ka baxaa bariiskani magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle iyada oo la sheegay in loo cuno bariiskani calool xanuunka iyo cudurro kale oo badan waxa inta badan ay ku nool yihiin dadka ku dhaqan magaalada Jowhar tabcashada bariiskani oo loo yaqaan bariis baarow ama bariis cadde waxaa faahfaahin ka bixiyay cabdi ibraahim isagoo oo sheegay in muddo ka badan 20 sano uu tabcayay bariiskani una faa'iido badan leeyahay waxaan ugu warbixiyay bariidka ka bax Jowhar maadaama aniga aan ahay aqoonyahanka bariidka muddo badanna ka soo shaqeeyay muddo badanna wadanta isla markaasna haddana burburka inta uu jiri oo dhanba gacanta aan ku haynay oo bariiska abuurkiisii iyo tala bixintiisii iyo wacyigelinta beeralayda intaas oo dhan aan isku wadnay nasiib wanaag hadda markii dawlad goboleedka noo dhalatay waxaa maaragtay bilowday bariiskii tacabkiisii in la ballaariyo ayaa dib u bilaaway bariiskan shaqadiisii waxaan bilaaway aniga 1968 ayaan bilaaway waxaana shaqada aan markaan bilaawayay waxaan ka imid Italian ka imid nasiib wanaag beeralayda yar kama caajisin way ma aragtay ku faa'iideen horumar weyn bay ku gaareen oo markii dambe waxa ma aragtay la yiri lagu magacaabay Jowhar aad ama Jidda aad ayaa lagu magacaabay horumarkii markii bariiska tacabkiisa laga gaaray horta warshadan haddaan idin kaga warramo warshadan waa warshad gacan ku haynteedii milkiideeda aniga aan leeyahay waaye gurigeydana anaa iskale waxaan fikiray malayga markaad rabtay inaad dabato maqaalintii waxaa loo geliyay hilib yar markaad wabiga ku rido waa soo raacaya maqaalintii qabsana dhuuntay u istaagaysa markaad soo jiido bas waa malayga gacanta ku jira anu waxaan fikiray marka beeralayda haddii kii tuulo degan iyo kii beledka degan haddii loo sameeyo bakhaar weyn oo bariiskooda ay dhigtaan warshad bariiskooda ay ku shiitaan hadday helaan bariisku tacabkiisii waa fidaya horta sida aad ka warqabtaan bariidka adduunweynaha dalalka caasiyada wuxuu ka ahaa cuntada koowaad ayuu ka ahaa waagii hore hadda adduunka oo dhan bariidku wuxuu noqday mid maaragtay aad loo jecel yahay oo meel walba laga cuno waxaana fiican sida maaragtay dadka bariiska oo ka ganacsada ama cuna oo jecel yihiin bariidka wadankooda ka soo baxay markay waxay og yihiin in bariidkaasayte oo wadankooda ka baxay inuu yahay bariid cusub oo tayo leh reer Jowhar ayaa inta badan waxa ay ku tirsan yihiin beeraha iyada oo tabcada dalaga noocyadooda kala duwan sida galeyda sisinta bariiska iyo digirta maxamed yaasiin mahdi maxamed qalfa telefishinka caalamiga SBS magaalada Jowhar.